soo dhawaada saaxiibayaal filimkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay gabadhan yar iyo ayeeyadeedu halkan taagan waana jasiiradda lagu magacaabo Jeju halkan ayay ku nool yihiin aabaheed waa uu dhintay gabadhan halka hooyadeed ay guursatay nin kale balse ayeeyadeed ayaa korinaysa oo la silixday waxayna aad u jeceshahay gabadheeda yarta ah maalin maalmaha ka mid ah ayay suuqa geysay ilaa ay markii dambe gabadheedii ka luntay waa ay fiirfiirinaysaa ilaa ay markii dambe iska oyday dhammaan dadkii meesha jooga ayay weydiinaysaa halkaasina waxaa ka bilaabanaya qisadii murugada ahayd ayeeyadii waa ay weyday gabadheedii ilaa ay markii dambe ka qusatay balse wax walba waa isbedeleen 12 sano kadib ayay dib ugu soo laabatay gurigii iyadoo aad u kortay balse su-aashu waxa ay tahay ma tahay iyadii filimka dhexdiisa ayaynu ku ogaan doonaa qisadan oo dhammaystiran inta aynan bilaabin qisada fadlan waxaa si xushmad leh kaaga codsanaya inaad muuqaalka like saarto haddii aad channelka ku cusub tahayna subscribe noo saar kusoo dhawaada filimkeeni maanta oo dhammaystiran Jeju iyo ayeeyadeed halkan ayay ku dalxiisayaan waana doonidan aad ka weyn sidoo kale waxaa la socda adeerkeed oo lagu magacaabo suuqo aad ayay u faraxsan yihiin dhammaantood waxayna ku jiraan mid ka mid ah dalxiisadoodii ugu fiicnaa Jeju aad ayay u yartahay waxaana soo korisay ayeeyadeed hooyadeedna waxa ay guursatay nin kale nolol cusub ayay bilaabatay waa ay soo kaxaysay gabadheedii iyadoo keentay dukaankan kadibna waxay ku leedahay qaado boorsadan bensalka ah Jejuna waxay aad u jeceshahay darooyinka ilaa markii dambe dukaankii ay kasoo baxeen kadibna waxay yimaadeen gurigii Jejuna waxa halkan ku sawiraysaa sawiro aad u qurux badan halka ayeeyadeeda ay daawanayso gabadheeda waxayna jeceshahay in ka badan inta ay waalidku jecel yihiin ilmahooda adeerkeed suuqo ayaa la jooga waa uuna ku ciyaaraya waxa uu ku leeyahay aniga sawir waa uuna jecel yahay gabadha uu adeerka u yahay waxa la gaaray xilli habeenimo ah kadibna ayeeyadii waxay u yeeraysaa gabadheeda waxay ku leedahay waa inaad xaraysaa boorsada si aad u seexatid waxayna u sheegaysaa gabadheedii yareyd inay beri subax tagi doonaan xaflad halkii ayay seexdeen habeennimadii Jejuna waxay seexatay iyadoo ayeeyadeed laabta kaga jiiftay subaxnimadii ayaa la gaaray kadibna waxa ay u soo kaxaynaysaa suuqa gabadheeda si ay dhar ugu iibiso ilaa ay markii dambe ninkan u yimaadeen kadibna waxa uu tusayaa mare aad u qurux aad ayay uga heshay maradii kadibna waxa uu yeeraysaa gabadheedii iyadoo ku cabiraysa maradii kadibna waxay leedahay bacna ugu rid weli waxay dhex u socdaan suuqii ilaa markii dambe ay weyday ayeeyadii gabadheedii kadibna gadaashii ayay soo fiirinaysaa waxaana arkaysaa inaysan gabadheedii joogin aad ayay u oyeysaa ilaa markii dambe suuqa bartamihiisii fadhiisatay kadibna ay iska oyday 12 sano kadib waxaa arkaynaa Jeju oo aad u weynaatay dukaankan make-upka ayay ku dhex jirtaa ilaa ay markii dambe dukaankii ka xaday waxyaalaha la isku qurxiyo gabadhan waxaa lagu magacaabaa Mini waana saaxiibteed dukaanka ayay kasoo baxayaan iyagoo aad u faraxsan ilaa ay markii dambe gurigooda yimaadeen waxay ku jiraan nolol aad u hooseysa saaxiibteed ayay qol kula nooshahay ilaa markii dambe daaqada ay ka arkeen nimankan way u soo galayaan waxayna ku leeyihiin waxaan rabnaa inaad noo dubtaan video ilaa ay markii dambe soo kaxayeen labadii gabdhood kadibna waa ay khasbayaan waxay ku leeyihiin mid kamid ah waa inay video duubtaa waxay doonayaan inay u duubaan muuqaalo anshax xun ilaa markii dambe ay soo raacday Jeju kadibna waxay soo gashay hotel waxayna doonayaan inay ka duubtaan muuqaalo anshax xun fadhiga ayay fariisanaysaa ilaa markii dambe ninkii dharka iska saaray kadibna waxa uu ku leeyahay saaxiibadan ayaa sugaynaa intay noo imaanayaan kadibna saaxiibadii ayuu telefoon u diraya waxa uuna ku leeyahay soo dhaqsada Jejuna aad ayay u baqsan tahay ilaa markii dambe saaxiibadooda ay u soo galeen iyagoo kaamirooyin wata waxayna doonayaan inay duubaan laakiin ninkii ayaa wax u koranaya gabadhii waa ay diiday ilaa ay markii dambe ninkii qaraaceen Jejuna waa ay kasoo baxsatay hotelkii halkan ayay timi ilaa markii dambe saaxiibteeda ay u timi kadibna waxay u sheegaysaa wixii dhacay ilaa markii dambe saaxiibteeda ay u soo gaday cunto halkan ayay ku cunteynayaan iyagoo aad u faraxsan laakiin hal mar ayay tusaysaa sawirkan waxay ku leedahay gabadhan ayaa la weysan yahay Jeju waxay fiirinaysaa sawirkii gabadha waxayna arkaysaa in ay iyada tahay ayeeyadii halkan ayay rafaadsan tahay waxayna ka shaqaynaysaa beerta iyadoo aad u murugaysan waxay fiirinaysaa sawirka gabadheedii oo meel walba ku dhegan rajada ay qabtana waa inay hesho maalin uun gabadheedii oo dib ugu soo laabataa ninkan ordaya ayaa yimi waxa uuna ku leeyahay dowladda guri kale ayay ku siinaysaa waa inaad gurigan iska soo wareejisaa laakiin waa ay kasii jeesanaysaa wax jawaabana ma siin doonto waxaa arkaynaa ayeeyadii oo aad u murugaysan kadibna waxa uu imaanaya wiilkeedii suuqo waxa uu ku leeyahay Jeju ma noolaa haddii ay noolaan lahayd waa inoo imaan lahayd waxa uu isku dayayaa inuu wax kasta sameeyo si niyadda ugu dhiso laakiin markiiba kool ayaa usoo dhacay waxaana soo wacay booliiska iyagoo u sheegay in gabadhoodii Jeju ay heleen isla markiiba iyagoo ordaya ayay soo galayaan meeshii booliiska ayeeyada aad ay u faraxsan tahay maadaama ay loo sheegay in gabadheedii ay nooshahay balse wax kasta waxay isku bedeleen si lama filaan ah Jeju ayaa ilbaabka kasoo gashay ayeeyadii waa ay fiirinaysaa iyadoo aad u murugaysan kadibna waxay arkaysaa gabadheedii inay tahay way u imaanaysaa iyadoo iska ooyeysa kadibna waxay ka tataamanaysaa wejiga iyadoo aad ugu oyday gabadheedii aad ay u faraxsan yihiin dhammaantood ilaa ay markii dambe gurigii kusoo laabteen gurigii ayay ku sameynayaan xaflad soo dhaweyn ah Jejuna waxay gudaha usoo gashay guriga iyadoo fiirfiirinaysaa qolkeedii waxayna arkaysaa sawiraantii ay sawiri jirtay iyadoo yarayd waxay soo qabatay boxkii ayeeyadeed u iibisay ay ku jireen kalaradii ay wax ku sawiri jirtay ayeeyadii ayaa u imaanaysa waxayna ku leedahay ma xasuustaa boxkan maalintii aan ku iibiyey dadkii dariskoo dhan ayaa isku yimi iyagoo aad u faraxsan waxayna ku faraxsan yihiin gabadhoodii dib ugu soo laabatay subaxnimadii ayay soo kaceen ayeeyadiina waxay ka shaqaynaysaa gurigii kadibna waxay arkaysaa gabadheedii oo dhar xun
qabtaa ilaa markii dambe ay suuqa usoo kaxaysay waxayna doonaysaa inay gabadheeda dhar u iibiso. Waxay isku dayaysaa iyadii inay u samayso gabadheeda wax kasta oo farxad gelin karaa ilaa markii dambe ay keentay dukaankan kadibna waxay u iibisay dharkii ay ku tagi lahayd iskoolka. aad ayay u faraxsan tahay laakiin Hiju wax farxada kama muuqato. qaybta dambe ee filimka ayaan ku ogaan doonaa. wiilkan baaskiilka wata ayaa arkaya Hiju oo telefoon ku hadlaysa kadibna waa uu soo dabagelaya ilaa uu markii dambe la hadlay laakiin waxay ku leedahay ma garanaysaa waxaanu ku leeyahay haa waan ku aqaanaa adigoo yar ayaan saaxiib ahayn. way soo raacaysaa iyadoo xagga dambe baaskiilka soo fuushay kadibna waxay imaanaysaa maalinteedii ugu horeysay iskoolka. macalinkii iskoolka ayaa soo dhaweynaya waxaanu ku leeyahay ardayadan cusub la soo dhaweeyo. Hiju kursigeeda ayay fadhiisanaysaa Hana waa uu arkaya. macalinkan galaaska waxa uu qoran yahay drawingka. macalinkoodina waxa uu ku oranayaa qof kasta waxa uu doonayaa ha sawiro. ardaydii galaaska ku jirtay oo dhan waxay isku dayaysaa inay sawiro aad u qurux badan sawiraan laakiin Hiju qalinka ayay gacanta ku haysataa ilaa markii dambe macalinka u yimi waxaanu ku leeyahay wax kasta oo aad doonaysid halkan ku sawir. saacado kadib ayaa macalinkii waxa uu kala hadlayaa daaqada waxaanu ku leeyahay weli maadan sawirin miyaa. waxay u sheegaysaa inay u baahan tahay weli waqti. mar kale habeenimo ayay gaadhay. macalinkiina waxa qabatay hurdo ilaa uu arkay gabadhiyo halkan joogta welina wada sawirka ayuu dul imaanayaa macalinkii ilaa uu la yaabay sawirkan quruxdiisa. habeennimadii ayay wadada soo lugeynayaan Hiju iyo Han kadibna waxa uu keenayaa gurigii laakiin ayadii weli waa ay soo jeedaa waxayna sugaysaa gabadheeda iyadoo aad uga walwalsanayd ilaa ay markii dambe ku faraxday. waa ay kusoo ordaysaa gabadheedii waxayna ku leedahay guriga soo gal. cunto ayay u diyaarisay waxayna doonaysaa inay gabadheeda casho siiso. gacanteeda ayay casho ku siinaysaa. maalinimadii xigtay waxaan arkaynaa Hiju oo wadata qalabkeedii ay wax ku sawiri jirtay kadibna macalinka ayuu imaanaysaa waxaanu ku leeyahay halkan fadhiiso anigoo kula jooga ayaan doonayaa inaa wax sawirtiin. macalinkana aad ayuu ugu faraxsan yahay gabadhan waxaanu doonayaa inuu waqti ku bixiyo maadaama daroowinkeedu aad u fiican yahay. Han waxa uu soo kaxeeyay Hiju kadibna waxa uu daaraya muusigan isagoo doonaya inuu halkan waqti kula qaato. aad ayuu uga helay gabadhan waa uuna jeclaaday waxayna waqti ku qaadanayaan kayntan cidlada ah laakiin Hiju waxay ku leedahay Han ma haysaa wax telefoon ilaa uu markii dambe telefoonkiisii usoo bixiyay. Hiju waxay soo wacaysaa saaxiibteed ilaa markii dambe ninkii gaangska uu telefoonka qabtay kadibna waxa uu ku leeyahay anaga ayay gacanteena ku jirtaa haddii aad doonaysid saaxiibta waa inaad lacag soo dirtid. maalinimadii xigtay waxaan arkaynaa Hiju oo la socota iyadeed iyo dhammaan dadkii tuulada waxayna halkan ku qabanayaan xaflad ay ku xusaan caado dhaqameed ay leeyihiin. isla markiiba Hiju waxay aragtay in halkan fursad ka banaan tahay kadibna way ka soo cararaysaa ilaa markii dambe gurigii timi. sanduuqi iyadeeda ayay baaraysaa iyadoo doonaysa inay kala baxdo halkan lacag halka iyadeeda u ducaynaysa gabadheedii. waraaqihii ayay soo qaaday waxayna timi bangigii kadibna waxay isticmaalaysaa lacagihii iyadeeda ay bangiga dhigatay. suuqu iyo iyadii halkan ayay taagan yihiin waxayna u sheegaysaa in lacag laga dhacay ilaa markii dambe ninkan booliska uu yimi. Hijuna waxay imaanaysaa guriga iyadoo aad u baqsan ilaa markii dambe iyada aragtay kadibna waa u yeeraysaa. way weydiinaysaa inay wax lacag aragtay laakiin waxay ku leedahay maya. maalinimadii xigtay waxaan arkaynaa Hiju oo sanduuqan baaraysa ilaa markii dambe suuqu qabtay waxaanu ku leeyahay maxaa samaynaysaa. waxa uu gartay in gabadhan ay lacag doonaysay inay xado. isla markiiba iyadii ayuu yimi waxaanu ku leeyahay lacagtaadii hore waxa haday gabadhaada haddana waxay doonaysay inay lacag kale ka qaadato. Hiju halkan ayay fadhiisatay iyadoo aad u murugaysan waxayna ogaatay inay fashilantay. isla markiiba guriga ayay isku dayaysaa inay ka baxday ilaa markii dambe iyadii ka daba timi waxayna u imaanaysaa gabadheedii oo fadhida meeshan xeebta cidlada sigaarna ku cabaysa. isla markiiba iyadii ay arkaysaa waxayna isku dayaysaa inay sigaarkii baqtiso laakiin iyadii waxay ku oranaysaa xabad sigaar ay dhiib. sigaarka ayay daaranaysaa iyadii waxay weydiinaysaa gabadheedii su'aal waxay ku leedahay badda iyo cirka ayaa weyn. isla markiiba Hiju waxay ku oranaysaa cirka ayaa weyn laakiin iyadii waxay ku oranaysaa waa weynaatay. su'aashana waxay weydiisay iyadoo 3 sano jirta. Hijuna markaas waxay ku jawaabtay inay weyn tahay badda. iyadii waxay ku oranaysaa gabadheedii aad ayaan kuu jeclahay mana doonayo inaan mar kale ku waayo. waxaan kuu samayn doonaa wax kasta oo farxadaada ah. haddii aadan halkan ku faraxsanayn waxaan ku geyn doonaa meel kasta oo aad ku faraxsan tahay. waana iskaga tegaysaa iyadii ayay fiirnaysaa oo aad u murugaysan oo ka tagtay. isla markiiba guriga ayay dib ugu soo laabatay iyadoo bilowda artiskeedii kadibna waxay arkaysaa iyadeedu hagaajinaysa darbigan qoraxduna ay hayso. isla markiiba iyadii ayuu imaanaysaa waxayna soo qaadaysaa kareenka qoraxda laga marsado wejigii ayay u marinaysaa waxayna tusinaysaa farxadda gabadheeda. aad ayay u faraxsan tahay iyadii maadaama ay aragtay gabadheedii oo u marinaysa kareen kana fikiraysa quruxdeeda. Hiju waxay u timi macalinkeedii artiska kadibna waxay tusinaysaa sawirkan ay sawirtay waana ayayadeed. aad ayuu la dhacsan yahay sawirkan sida ay u sawirtay waana ku farxaya macalinkeedii artiska. Hiju waxay ka soo baxaysaa iskoolka iyadoo soo raacday saaxiibkeed Han. wadada ayay ku dhex sheekaysanayaan ilaa markii dambe ay cod maqashay. ninkan ayaa u yeeray ilaa markii dambe ninkii aragtay waana ninkii qabi jiray hooyadeed. isla markiiba waxay ku leedahay Han iska tag. dib ayay ninkii ugu soo laabatay waxa uuna ku leeyahay waxaan u baahanahay inaan lacag siisid xaaladaydu aad ayay u xun tahay waxaan u baahanahay inaan lacag siisid laakiin waxay ku oranaysaa iskool ayaa nigtaa wax lacagana ma haysto ilaa uu markii dambe ku yiri ayada lacag iga soo qaad laakiin waxay ku tiri ayada lacag ma haysato balse waxa uu hadalkii ugu soo gabagabeeyay ka soo xaday ayada lacagta ay haysato way xanaaqaysaa ilaa ay markii dambe isaga soo tagtay Hiju. guriga ayay dib ugu soo laabatay iyadoo fakaraysa ayaa hal mar ilbaabka waxa furaya ayadeed kadibna u yeeraysaa waxay ku leedahay gudaha soo gal. Hiju safar ayay gelaysaa waxayna timaadaa airportkii ayadeed ayay macasalaameynaysaa
celinaysaa waxa ayna tegaysaa gobol kale iyada iyo macalinkeedii daroowinka waxa ayna ka qayb galaysaa tartanka sawirka laakiin aad ayay u murugaysan tahay wejigeedina murug ayaa ka muuqda iyadiina waxay u mahad celinaysaa macalinkeedii ilaa ay markii dambe ismaca salaameeyeen waa inay kasoo tegaysaa halkan ayay yimaadeen waana meesha uu ka dhacayo tartanka sawirku ninkii qabay hooyadeeda ayaa halkan ku sugayay ilaa ay markii dambe lacagtii u keentay waxayna ku leedahay waxaan kaa codsanayaa inaad nolosheeda ka fogaato mana doonaya inaad dib dambe ku arko way ka dhaqaaqaysaa iyadoo dib ugu soo laabatay macalinkeediina waa uu ku faraxsan yahay waxa uuna ku leeyahay dadkan oo dhan adiga ayaa ka guulaysan doona waa kuu soo laaban doona ayuu ku leeyahay macalinkii waa uuna ka tegayaa macalinkii artiska dib ayuu ugu soo laabtay meeshii ay joogtay ilaa uu markii dambe arkay warqadan halkan ku dhegan waa uu qaylinaya aad ayuuna u murugaysan yahay isla markiiba suuqu ayaa u imaanaya iyadii halkan cunto diyaarinaysa hiiju inaysan ahayn gabadheeni ayayadii ayuu u sheegayaa in hiiju aysan ahayn gabadheedii isagoo wata waraaqihii cadeymaha ee DNA-da waraaqdii ayay fiirinaysaa iyadii ilaa ay markii dambe indhaha kaga dhufatay waxayna ku leedahay iga tag hiiju halkan ayay fadhidaa waa inay murugaysan tahay waxayna raadinaysaa saaxiibteed ilaa ay markii dambe aragtay labadii tuug kadibna waa u yeeraysaa waxayna ku leedahay aawi saaxiibteed ayaa soo dhaqaaqaysa ilaa ay markii dambe tuugadii qabteen kadibna waxay gacmaha qabanayaan hiiju halkaas ayay ku qaraacayaan hiiju si xun weliba booliiska ayaa imaanaya isla markiiba iyadii ooyeysa ayaa meeshii booliiska imaanaysa kadibna waxay leedahay gabadheeda maxaa ku dhacay laakiin waxaa loo sheegayaa in gabadheedii kiis lagu helay haddaba yay tahay gabadhani saaxiibayaal hiiju hooyada ninkii qabay ayuu soo xiray boolisku kadibna waxa uu sheegayaa booliskii wax kasta waxa uuna ku leeyahay hiiju 3 sano iyadoo jirta ayay hooyadeed soo xaday kadibna waxay keentay guriga noloshina waa ay ku adkaatay hiiju kadibna waxay ka codsatay hooyadeed inay u celiso ayadeed gaari ayaan soo saarnay si aan dib ugu celino gurigii ayadeed xagga dambe ee gaariga waxa saaran hiiju iyo sidoo kale gabadhan oo lagu magacaabo Yun waana hiiju walaasheed waxayna u dhashay ninkan intii aan wadada ku jirnay oo aan u soo wadnay hiiju ayaan waxaan galnay shil gaari kadibna waxaa la keenay cusbitaalka way dhimatay hooyadii sidoo kale waxa geeriyootay hiiju intii aan cusbitaalka ku jiray ayaan fakaray gabadhaydiina waxa ka dhigay inay tahay hiiju waxaana qaatay lacagtii insurance-ga xaaskayga iyo sidoo kale iyo gabadhii hiiju ee dhimatay sirtii oo dhan ayuu fashilayaa gabadhana isaga ayaa dhalay waxaana lagu magacaabaa Yun halka hiiju iyo hooyadeed ay geeriyoodeen mar hore ayayadii aad ayay u murugaysan tahay waxaana arkaynaa Yun oo ku jirta xabsiga waxaana lagu xukumay dhowr sano xabsi ah waxay soo xasuusanaysaa xasuuseedii hore iyo sidoo kale walaasheedii dhimatay halka ayayadii ay murugaysan tahay markastana waxay fiirinaysaa meeshii ay gabadheedu fadhiisan jirtay way u soo dhawaanaysaa iyadoo malaynaysa in gabadheedii ay nooshahay laakiin waxay arkaysaa inay tahay meel bannaan waqti badan kadib hiiju waxaa laga soo saaray xabsiga kadibna waxay soo dhex maraysaa suuqa iyadoo raadinaysa ayadeed dadkii suuqa jooga oo dhan ayay tusaysaa sawirka ayadeed waxayna ku leedahay ma aragteen islaantan laakiin qof u jawaabo ay weynaysaa ilaa markii dambe ay meel dheer ka aragtay ayadeedu halkan lugeynaysaa waxayna noqotay homeless gurigiina waa ay ka baxday magaceedii ayay ugu yeeraysaa ilaa markii dambe ayadii ay soo fiirisay way soo ordaysaa waxayna u imaanaysaa ayadeed iyadoo jilbaha qabsatay ayadiina waxaa ka muuqda sirac iyo rafaad aad u badan markii ay ogaatay in gabadheedii ay dhimatay gabadhii ay ku bedelan lahaydna ay xabsiga gashay waxay ka dhacdeen nolosha dib ayay ugu soo laabteen gurigii iyadoo keentay ayadeed halkan xasuusihii ayay dib u soo celinaysaa laakiin gurigii waa uu baaba'ay dowladiina waa ay xiratay guriga suuqu waxa uu tagayaa ninka meesha haysta waxauna ku leeyahay waxaan kaa codsanaya inaad guriga dib noogu furtid laakiin waa uu ka diiday ilaa uu markii dambe iska ooyey laakiin waa uu naxariistay ninkii waxauna ku leeyahay waa u fasaxantihiin gurigiini gurigii ayay hagaajinayaan waxayna doonayaan inay soo celiyaan xasuusahoodii hore Yun waxay soo kaxaynaysaa ayadeed iyadoo aad u faraxsan kadibna waxay fadhiisanaysaa halkan xilligii barafka ayaa la gaaray kadibna ayadeed ayay sawiraysaa waxayna tusaysaa sawirkii ay sawirtay waqti gaaban ayay ku qaadanayaan gurigii mar kale laakiin ayadii waxay u sheegaysaa inay ogaatay mar hore inaysan ahayn gabadheedii iyadoo ku tiri maalintii aan xeebta fadhinay ayaan ogaaday inaadan gabadheedii ahayn waxaana ku ogaaday su-aashii ahayd badda iyo cirka yaa weyn waxaad igu jawaabtay inay weyn tahay cirka taas ayaan ku xaqiiqsaday inaadan gabadheedii ahayn laakiin jacayl aad u daran ayaa ku qaaday waxaana kaa dhigtay gabadhaydii waxaana markasta isku dayi jiray inaanan ku ogeysiin inaan ogahay inaadan ahayn gabadhaydii Yun way iska ooyeysaa waxayna ka ooyeysaa silacii iyo rafaadkii ay marisay ayadeed muddo kadib ayadii waa ay xanuunsatay waxaana la dhigay cusbitaalka Yun ayaa u imaanaysa waxayna ku leedahay waad caafimaadaysaa laakiin ayadii waxay u sheegaysaa inaysan maanta ka bixi doonin cusbitaalka xanuunka daran ay haya awgeed waana xilligii aan geeriyoon lahaa laabta ayay isgelinayaan kadibna ayadii waxay ku leedahay gabadheedii waan ku jeclahay adiga iyo hiijuuba waxaana rajeynaya inaan nolosha dambe isku aragno ayayadiina halkaas ayay ku geeriyootay daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay qisadana waa qiso run ah oo laga sameeyey filin tan iyo intayn ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinka codsanaya inaad muuqaalka like saartaan channelkana subscribe soo tirahdid waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka